hoobalo hoyaale halyey iyo geesi hawl kare ey hoobalo hoyaale haween gaaridoodii bay selayey hoobalo hoyaale hasaawe jacayl waxay hirgasheen hoobalo hoyaale habeenkoodii baa hadeer galayey hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale halyey iyo geesi hawl kare ey hoobalo hoyaale haween gaaridoodii bay selayey hoobalo hoyaale hasaawe jacayl waxay hirgasheen hoobalo hoyaale habeenkoodii baa hadeer galayey hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale wabay mid cabbaasaba helayey hoobalo hoyaale hambalyo waa guri galkoodii hoobalo hoyaale hibaalaysku siiyey hoodalehey hoobalo hoyaale wabay waa lama hurankii hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale hodiyo deeq ilaahay horsade ey hoobalo hoyaale hobaan midhal iyo raaxalehey hoobalo hoyaale hodiyo nool rays la higsadayey hoobalo hoyaale hoygii u badadan harsada weligiin hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale hablaha qaaradeeno idiley hoobalo hoyaale haween quruxdoodii weeyaaney hoobalo hoyaale hoygay ku barbaartay baa wacaney hoobalo hoyaale hiddaha dhaqankay hormuud tahayey hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale mar labaad hambaryaanu leenahayey hoobalo hoyaale hibiyo duuca weyn banaga hooyaay hoobalo hoyaale habsada guri iyo aroos wacaney hoobalo hoyaale adduun ha qabli ii ka hagarbeelay hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale mar labaad hambaryaanu leenahayey hoobalo hoyaale hibiyo duuca weyn banaga hooyaay hoobalo hoyaale habsada guri iyo aroos wacaney hoobalo hoyaale adduun ha qabli ii ka hagarbeelay hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale helelo iyo helelo hoobalo hoyaale hodiyo deeq ilaahay horsade ey hoobalo hoyaale hobaan midhal iyo raaxalehey hoobalo hoyaale hodiyo nool rays la higsadayey hoobalo hoyaale hoygii u badadan harsada weligiin hoobalo hoyaale
سوعني هوبالو هيالي الدون قبلي كهجر بلاي هوبالو هيالي هوبالو هيالي هوبالو هيالي imikana waxaan u yeelayaa goob ka mid ah marti sharafta waayo talow waxaan u yeelayaa cabdi jaamac raage faacuul oo ah dhaqan yaqaan oo ah maxaadayde dadkii naga weynaa dhaqanka maanta kasii jooga markaa faacuul sacab diiran aynu kusoo dhaweyno kusoo dhawow bismillaahi raxmaani raxiim marka hore waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad halkan academy aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa maadaama ay tahay munaasabadoodii afraad aad baan u hambalyeynayaa hadal badan aan odhan maayo manaan iman hadal badan idhaahdo waxaanse jecelahay dhalinyaradu marka ay dhaqankooda tilmaamayaan imika halkii ciyaartii halkan la taagnaa halkaasaan fadhiyey aniga cadha ay haysay waxaan arkayey nin caynkaa leh ayaan arkayay anigu ma aha in lug quri tilmaanto wax sacabku waxbuu tilmaamaa lugtu waxbay labada lugood waxbay tilmaamaan actionku waxbuu tilmaamaa waa intuba inuu socotaa yaa waa bal mee cali mee aniga iigu dhufta bal hadda heeska in yar baan tusayaay dhalinyarada imika halkay ka soo baxaysay ee dhulka ugu noqonaysay waad arkayseen maaha ninku ama gabadhu inay luqura ka ciyaarto xitaa inanka isrogaya aad buu fiican yahay rogidiisu ma xuma laakiin waxa weeye tembo wax walba tembu leeyahay tembada inuu dhaafo maaha sacabku tembu leeyahay cagteen tembay leedahay actionku tembu leeyahay waxa weeye tembada haddaad dhaafto waad ka hor baxaysaa midda kale waxa weeye ishaa laga khamaaraa isha ayaa laga khamaaraa haddaad isbarataan inanta kuu soo boodaysa ay inantuna barato inanka u soo boodaya wax looga xumaada ma jiraanba laakiin haddii la isfahmi waayo mushkiladeeda leda inta aan ciyaarta golaha la keenin ayaa la isbartaa waa iga dardaaran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan runtii farxad weyn bay ii tahay in halkan caawa xafladan sanad guurada afraad ee kooxdan aan ka soo qayb galo runtii aniga oo magacayga ku hadlaya waan u mahadnaqay runtii dhalinyarada soo casuutay waxaan sidoo kale iyagana halkan uga mahadnaqaya dadka sida wanaagsan uga soo qayb galay ee soo ixtiraamay madashan aadka u quruxda badan kolley sida caawa halkan aynu joogno waa xaflad sanad guura ha noqotee runtii sanad guura un micnaheedu maaha laakiin ujeeddadu way ka weynta waxa weeyaan dhalinyaradan soo dadaashay ee barnaamijka quruxda badan keentay ee dhaqankeennii soo noolaysay inaynu hambalyeyno oynu farxadda kala qayb qaadano oo barnaamijyadooda runtii la socodsiiyo oo hadday dowladdii noqoto iyo hadday ciddii kale arrimaha bulshada qayb qaadanaysay noqoto in lagala qayb galo oo runtii dhalinyaradaasi maanta taageero badan bay u baahan markaan leeyahay waxa weeyaan dee cid mushahar siisaa ma jirto cid kaloo gacan qabataana ma jirto iyaga is abaabulay oo fikirkooda keenay waan arkay runtii dhowr maalmood baan kala qayb galay iyagoo tababar samaynaya meeshay joogaan runtii jaamacad halkan aan magaceeda ka sheegi doono mahadnaqay alfa la yidhaahdo runtii oo inta badan siisa meeshay ku tababartaan waxaan markaa laynooga baahan yahay hadday inagu bulshadii nahay dee in dhalinyaradaasi marka koowaad ay helaan meel iyagu ay leeyihiin ay ku tababartaan oo ina marti u ahaan kolba jaamacad iyo meel kale dhinaca kale waxaa laynaga doonayaa in barnaamijyadoodii laga gudoomo dee xafladihii waaweynaa lagu casuumo meelihii barnaamijyada lahayd lagu casuumo magacoodii kor loo qaado
laga yaabaa in xafladan caawa halkan ay joogaan inay iyagu jeebkooda iska soo abaabuleen runtii ku dheeraan maayo dhalinyaradaasi waan u mahadnaqayaa runtii siday u dadaaleen siday dhaqankii usoo nooleeyeen siday runtii inoo madadaaliyeen caawa inteedaynu fadhinay halkan waad arkayseen macallin faacuulow dee sixib badan buu sameeyey tala soo jeedin buu sameeyey laakiin macallinka waxaan leeyahay dee intaasi waa karaanka iyagiya wixii naga dhiman haddaan dhalinyarada nahay dhaqankii maadaama maanta halkay tiknolojiyadu inala maraysa ad arkaysaan nimankani 100% way dadaaleen baa anigu leeyahay koley dee waxay goor gaaban hadalkeedna gaabane waxaan hadalka kusoo afmeerayaa waa dhalinyaradaasi maanta isxilqaantay ee dadaashay aynu garab istaagno oo hadda wixii aynu la qaban karayno aynu la qabanno runtii anigu haddaan si kale u dhigo dhalinyaro waan maamulaa oo koox dhalinyaro hafiyo kaleeda hoos service laga baan maamulo ka aan ka ahaadee waxa weeyaan hay'ad bay ku tiirsan yihiin oo nidaam bay leeyihiin barnaamijyada sidaas si lamid ah in cidana ay helaan cid ay ku tiirsadaan waa dhalinyarada hadii aan dhiirigelin waa dadka aafadii taariikhdu waxay nagu hayso waa dadka aafadii qabyaaladu waxay nagu hayso waxa laga yaabaa inta dhalinyaro ah halka isugu timid inayna midna mid la hayhay hadday xitaa isku hayb yihiin waxa laga yaabaa isgaranayba ilaahay baa mahad oo dhan iska leh dhinaca kalena waxaan ku baraarujinayaa iyagana inayna isdhigan ay dadaalaan ay halkaa runtii dadaalka kasii wadaan oo cid allaaliya ciddii ay isleeyihin barnaamijkiina way idinka taageeri karaysaa ay la galaan oo weli maanta dowladdeenu iyo wasaaradda dhan oo dhaqanka iyo hiddii u samaysan bay samayseen bal inaad xidhiir la samaysaan haddaydan hore ula samayn haddii aad la samayseenna inaad xoojisaan baan runtii idinka codsanayaa kolley intaasaan kusoo afmeeraya hadalkayga aad iyo aad baad runtii u mahadsantihiin sida wanaagsaneed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله صلى الله عليه 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 بسم الله بسم الله صلى الله عليه 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 بسم الله
in hadal badan oran maayo dadku waxay u baahan yihiin qof kaciyaalkii halkan adarkiisina ka socday waxaan u yeerayaa gudoomiyaha ayaan oran afhayeenka kooxda Abwaan Faarax Maxamed horta dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad naga soo qalqabasheen xafladan ballaaran ee loo sameeyey sanad guuradii afraad ee ururka Halkan Academy kadib salaan kadib waxaan aad u hambalyeynaya marti sharafka qaaliga ah ee soo ajiibtay noo timiday maxaan ku rahaa hoolkan weyn ee Hilaa Dheere ee maxaan ku raahdaa Haydaro salaan kadib waxaan aad halkan uga hambalyeynaya on hambaliyay bogaado u diraya kooxda Halkan Academy oo afar guuleed jirtay inta kadib waxaan halkan uga dirayaa dhammaan bulshooyinka caalamka kooxda Halkan Academy inay soo gaadhay meel aad u qaaliya waxa lagu jiraa meel xasaasiya waxa la mariyaa meel qaaliya Halkan Academy maalintii aan imi ama waqtiga lagu wareejiyay afayeenka ama xulka afayeenka waxa isbedelay waxyaabo fara badan waxaanu soo saarnay dad tayo leh sumcad leh muuq leh magac leh miisaan leh inta kadib waxaan aad halkan salaan qaaliya uga dirayaa gudoomiyaha
kooxda cabdiwali samriye iyo agaasimaha xasan cismaan buuni waxaan halkan ka salaamayaa kale dadka qabanqaabada ku jira meesha waa sayid cabdi cali ayin aamiin oo ku magac dheer misir intaa kadib waxaan aad iyo aad idin leeyahay ku soo dhawaada xafladu waa xafladii loogu talagalay dhaqan waa maalin dhaqan waa maalin ay dadkeena tusayno dhaqankeena wuxuu yahay haddaad maqashay xaflado meelaha lagu qabsado ama waxyaabo kale sida xafladaha gaarka loo leeyahay ama xafladaha kale maanta anagu waxaanu soo bandhignay xaflad qaran oo ah xaflad dhaqameed dhaqanku wuxuu ka turjumaya waxaynu leenahay inagu waxay ummaddeenu ka soo jeedo waxaynu matali karayno waayo ummaddeenu waxay ku midaysan tahay waa dhaqan waxaynu ka soo jeednaa waa dhaqan waxaynu ku faannaa waa dhaqan waxaynu ku hiigsanaynaa ama himiladeenu tahay waa dhaqan intaa kadib dhaqankeenu waa shay qaali ah waxaan ugu talagalnay dadka bal inay ka bogtaan loo sameeyo habeen dhaqan haddaad maqasho habeen hayso habeen fan haddaad maqasho habeen xaysiis haddaad maqasho habeen commedia waxaasoo dhan waa laga soo gudbay laakiinse annagu waxaanu samaynay habeen dhaqan oo dadkoo dhani ay dareemaan dhaqanku wuxuu leeyahay iyo macnuhu leeyahay aad iyo aad baan dhammaantiin salaamaya waxaan leeyahay xafladdu way ballaaran tahay intaa way kasii koobanta aad iyo aad baan salaamaya dhammaantiin waa cali bashiir cali waxaan leeyahay halkan kaalay maansu inoo hayaa haddii la idhaahdo cali waa abwaan dee hargeyso dhan baa fayrii soo gelaysa taamama taakaya marka kolley afareyda dadkan iska turturtumoo ku jira marka kolley laba waxaan inoo hayaa waa laba maanso waa mid aad u qosol badan oo la idhahda fitis gawaarida yar magaalada dooqsho sameedaan arag waa mid fitis la idhaahdo iyo mid kaloo ma dhaweyduna yaro qorqoray oo xafladda aan ugu talagalay iyada dhaqanka iyo waxaan markii la yidhi marka ayaan haddii xataa ku yina marmargadaha socdana ninkan waa abwaan weyne waxay ninkan haddana wixii ku istaagayahay dee waxaan isku yarigeygeyno hela yaabina hoobay dhaqankeenna hanaanka dadkeenna hiddaha lagu dhaashto hawraar ku astaysan intaan ha idhaahdo ballaanyar higaadsho dulwada la halooso dhalintu ku hosowdo habeen saqbarhkiisa waxay sacab hoorsan hufnaan u tumaan inaan hiddahoodu arlada dhulka hooyo dhaya lagu hoolmin hoobay dhaqankeenna jaandheer habisteeda saylici hagarbeelsan habsooc garasheed leh haddaan hagardaamo intoo laga haadsho hareer laga geynin hugii dhaqankeennu intuu yar hayaamo hijrada dhul shisheeye habaas ciideedka markuu ku hungoobo orarka ku cuni maayo markaa kolley dhaqankeennu way iska yar tahay inta dhaqanka dhallinyarteena imika waktigan way yar tahay inta dhaqankeedii haysatay oo adiga arkay dee roog midho baynu xiranaa dee inteena ugu soo dhowna waa ninka surwaalku halkaa jooga dee habluuna oo xidhaan waynu aragnay marka haddii aynu dhaqankeena aynu ku adkaan weyno dee in dhaqamo sheegay soo geliya keenina oo meelaha dee waraaba yaxkasta ku cunayaan oo cid kasta iska qaadanayso halkaa lagula socday dhalinta waxaan lahay dhaqankaa lagu daylaan hoobay dhaqankeenna huqaad quruxdiisa heesaha lagu daahay dhegtii haybisaa ku soo hiratee hagaag jaarraaca hunguri guux dheer leh markuu hiihleeyo ninkii hurdo rabay miyuu helayaa hoobay dhaqankeenna dad yow hagardaamo intaad ka huftaan quruxdaa ku habboon hareera dhigo intaad hubisaan habaaska ka tira kolley waa iska jibjaban yahay oo inkastoo dhan haddana soo tifaftirin dee intaa yar baan iska soo ila xirxiday waxaan u gudagelayaa maansadan fitis la idhaahdo iyo waxay aa ku timiday kolley waa mar haddii dadku meel isku yimaadaan in laga yaro qosliyaa loo baahan yahay markaa maansadan fitis aniga nin kale oo saaxiib nahay oo isaguna dadkan waxyaro tirtiriyay aan odhan waa abwaan oo la dhaha nuux maxamed cali ayaa waxaan maalin nagoo jaamacadda wada fidhnaan isku qabsanay inantii uu dabadeetana ninkii nuux ammaanay dee wuxuu ku ammaanay wax aan fahmi waayey dabadeetana aniguna waxaan isdhani oo ninkan adiguna waxaanu ku ammaanay dee inantaa kula tartano dee labadiina kii raacdo adiguna wuxuu ku ammaanay wax lamida ku ammaan dabeetana maasadana igu soo dhaacday waktigaas markaa waxaan ku bilaabay ninba waa filkiisa ana foofka caashaqa inta aan fayaamoon fiid horeeta soo kaco maan feelka raadiyo laga faaqidayo fiisooyin lagu helo fuudayo caashaqa laga faaqidayo fiisooyin laga helo fuudayo caashaqa inantii baa dabeetana isdhi ammaan inan yahay faxaysaa fayskaaga quruxda le fooqda muraayada meelooda fadhiistaan baan idhi hamar foodhinayay faynuuska laabtay faxyaha qulubtay faxliyaha jidhkaydhaay feedhaha sabeeyay fitiska dhegaya markaa gabaladaadulkayacaasa ayaa naftii ku ammaanay fitis gaadhigayay fiidmeerta duushiya fallaadhaha cadceeday facebook la dhuuqiyo faybar wada iftiimay faallada warkaygiiyo faajkii jacaylkaay
فوميها دقها iyo voice-ka afkaygay farastiga hablaha iyo fiishlaha ay deeqday baan idhi falan qaadmoodiyay waxa tahay faraanti faraha la soo fiidkiina lagu baxo inantiis kama helin macaan hageeyay waxa la baxaysa ee waxa faraha lagu sameeyaa tamar baan laga helay faraha la soo fiidkiina lagu baxo football la laaday farki kala ay cali kala oo garasay farkiisa farki weyn ma jirin inantii waxa ninka farki weyn lagu timaano waxa la football la laaday farki kala ay film wada soo waxaan u fahmay bayr joogtay furleer kadariyo ful lagu casheeyay meel baan intii gareebay ful nafta waa bad falato fikirka qaato way kugu fogaatay haka faagan adiguna inta fagaaraha falasheeda keento kaligay faale nin kalena fariimaha weligaaba ha u furin like aan ku fiicnay face-kiisa ha u dhigin hadduu faynku siiyana adifo ku sooriyay wada Facebook wiina dawxiyay hadduu ina galo aniga meeshii waxaan leeyahay sidaade falasheeda ka kaligay faale fayl nin kalena fariimaha weligaaba ha u furin like aan ku fiicnay face-kiisa ha u dhigin hadduu faynku siiyana adifo ku sooriyay weligii ha fooshe faraha ga dhaadheer rig wasiga iyo fadhi ilaa waad fudfuda sawir farax soo dhigay ilaa waad fudfuda sawir farax soo dhigay fadhi gurta oo badan wada waa farax ninka halka taagnaa baa waa kale isaga xasaabnaa waa isaga fadhi gurta oo badan ada foos asleeyay inta dacalka faydo inta faalis food ha ada food igara leeyahay ada food asleeyay ada dacalka fayday inta faalis moodo how foofin suuqida ama sawir fas badan oo full light ku shidayo meel kasta free tahay inta soo firayso yaa faala laga bixin daadgoon in aku qawiyay dadka suuqa soo dhigay ninka tayaan faala ka bixin arimaha faqeenina cidiyana ka furan fakalada jacaylkana wada ful gareeyo verify gareeyo bas wiilka farbada mare watahay uu mahadsan yahay Cali Bashiir caawa loo kala bixi maayo waxa inoo jooga adwaanadii fanaanadii dhalinyaradii cid kasta qurux badan xitaa waxa jooga caawa ragii af Talyaaniga ku soo gabi ama wax ku soo qoray waxaan markan u yeerayaa Sahra Ilays oo halkan hadal ka soo jeedin doonta inoona heesi doonta de waa jaandeertii ama badhaqankii Sahra sacabka loo qaraac runtii aad iyo aad doontaan ugu farxaa markaan arka maartay dhaqanka marka la ciyaarayo waxaan jecelahay dhaqanka xoog baan u jecelahay hablaha maxaan ku leeyahay namada marti sharafta halkan isugu timid aad iyo aad baan u salaamayaa aan kullee hal hees baan ka qaadi doonaa jaamac muuse jaamac isagana aad iyo aad baan u salaamayaa oo qolyaha iminka xoogga u soo celiyay dhaqanka ay ka mid uu yahay isaga iyo ayaan iyo Sahra halganoo iyaduna inoo samaysay waad arkaysaa waad u jeedaan dhaqankeennii in mar walba runtii dhaqanka laga tago maaha inaynu dhaqankeena ilaashana way wanaagsan tahay carruurteena way wanaagsan tahay inaga inoo wanaagsan tahay haddaynu dhaqan shisheeye raacno mushkiladeeday leedahay marka aanu kolleyba intaasaan idiin soo jeedin lahaa aad iyo aadna waan idiin salaamayaa waanaanu dee idiin heesayna
waxaan markan u yeerayaa bulshadu wuxuu bayna tiraahdaa wariyaashu way hadal badan yihiin oo macaawa lagama dhamaado laakiin shicibka intiisa kala qaar bad mooda idaacad ku horeysa xitaa waxaa halkan fadhiya oo ku soo dhaweynaya maxamed ciise jaay magacayga boowe malaade halkaas iga soo muuqdaa waxaan ku soo dhaweynayaa waa maxamed ciise aadan oo ah wariye ka socda TV-ga qaranka la sacabeeyo runtii sharaf bay tahay inaan kala soo qayb galo kooxda halkan akademi oo ah koox iyadu eegan
sidii ciyaaro dhaqameedyada iyo hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ay u soo nooleyn lahaayeen halka ereyada ku qoran waxa kamid ah hirwada la alooso dhalin ku haasawdo habeen saqbarkii waxay sacab hagar la'aan hufnaan u tumaan arlada dhulka hooyo inaan hidahoodu dhaya lagu hoolmin taa macnaheedu waxay caddaynaysaa astaanta ay u taagan tahay halkan waxa fadhiya cabdifaacuul oo ah isaga laftiisu dhaqan yaqaanada aadka u weyn rugcadaga saare axmed cabdilaahi saarayle soo iyaduna ka mid ah fanaaniinta aadka u weyn ee Somaliland qadarinta ka mudan samsam sharaf baan arkayaa najiib wadna kaabe fanaaniin kale oo aad u tiro badan jaamac muuse jaamaco marka dhaqanka la soo qaado xaruntii dhaqanka ee Hargeysa anagu waxaan leeyahay hadalkayga hadal badan sheegi maayo halka horta waan ku hambalyeeyaa kaalinta ay kaga jiraan dhaqanka iyo hidaha iyo sidii loo soo nooleyn lahaa waxaan leeyahay kuwa sanad guuradii afartanaad ilaahay hay nagu soo sanad guuradiina afartanaad oo siiro hala raaciyo marka afartaadii siiro la raaciyo afartan marka idinkoo jiilal badan soo saaray oo dhaqankii soo nooleeyay insha Allah oo sanad guurooyinka dambe goobaha aad idinku leedihiin ku qabsataan iyo hanti aad idinku leedihiin anigu waxaan mar kale aan idinku soo noqon doonaa anigoo hal xiraalayaal iyo mala googaaleysiyo wada daciidii garatana kulay nin golaha yimido wax isku dayay wax gartay wax la'aan la diri maayo nin walba si diyaarso asxaabtaada la saacad intaas la dhaqankay wax ka garanayaan waad mahadsantii mar kale sagal baan ku wareejin doonaa waad mahadsantahay sagal sidaan sheegay la isma gaadhin weli dee bartankiiba la marayaa waxaan markan ku soo dhawaynayaa masraxa alfanaan nagiib maxamed miyuhaatalow arniyo ninku wuxuu ku magac dheeriyuu nagiibkaas iyo wadna kaabahaas oo inta badan magaca aabaha lama xusabe war magaca maxaad ku ilowda horta adiga ilaabay anigu dee sagal guray waan ku garanayaa adiga ilaabay beri horena waa isku keenta beesarta waxaan salaamaya marti sharafta qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta mudan ee halkan ka soo qayb galay xafladda waxaan salaamayaa rugcadaaga jaamac muuse jaamac oo leeyahay cimrigaaga iyo ilaahay cimriga iyo caafimaadka iyo caqliga baa ku siyaadiya adeer oo u taagan mar walba hidiya dhaqanka iyo dhalinyarta iyo horumarinteeda fanaaniin waaweyn baa halkan fadhido oo aan aad iyo aad iyagana u bogaadinayo oo cali gacal guuleed ka mid yahay markaana waxaan idinku dhufan doonaa barorta xaggii dhaqanka hobala hobeeyo hobey cirfyada hargeysaadiyo hobey cirgaaba iyo salal hobey iyo caynab iyo hawde hobey cakastaba dhulkan dego hobey carrigaygu waa hodano hobey ciiddiisu waa dahabo hobey nikacaw dhigta nabade hobey kuucawe badhaadhaha oo hobey waana caadil mahadi hobala hobeeyo hobey cirfyada hargeysaadiyo hobey cirgaaba iyo salal hobey iyo caynab iyo hawde hobey cakastaba dhulkan dego hobey carrigaygu waa hodano hobey ciiddiisu waa dahab hobey nikacaw dhigta nabade hobey kuucawe badhaadhaha oo hobey waana caadil mahadi hobala hobeeyo hobey intanoo cisyo sharafe hobey cambaruudka lagu ladhaye hobey ninka caasiye tira xaqiiq calaf baanu laabnayn hobala hobeeyo hobey intanoo cisyo sharafe hobey cambaruudka lagu ladhaye hobey ninka caasiye tira xaqiiq calaf baanu laabnayn
هبالا هبالا هبيوي هبي عمل هذا تقدر لذيو هبي عيد كودود قبيليو هبي بورمي علمي يالا هبي ننعكا معاسيو هبي عري اومنا ماهو هبي لما دقي عكرا ماهو هبي تلكو عريف بلا عرفي هبي وعمر برواقاهو هبي وانا عادل مهدي هبالا هبالا هبيوي هبي عمل هذا تقدر لذيو هبي عيد كودود قبيليو هبي بورمي علمي يالا هبي ننعكا معاسيو هبي عري اومنا ماهو هبي لما دقا عكرا ماهو هبي تلكو عريف بلا عرفي هبي وعمر برواقاهو هبي وانا عادل مهدي هبالا هبالا هبيوي هبي انت نوعس يا شرفي هبي عنبرود كلا قلداي هبي نينك عاسية تيراي حقق على أخبان اللبنين هبالا هبالا هبيوي هبي انت نوعس يا شرفي هبي عنبرود كلا قلداي هبي نينك عاسية تيراي حقق على أخبان اللبنين داعد محمود أسد عبد الله قانو waxaa kaloo ku xigay xamse maxamed maxamuud waxaa kaloo ku xigay nin la yiraahdo cabdiraxmaan saciid saabaan caataye yani oo miskiin cabdi caliye sidoo kale waxaa riwaayada aan ka maqnaanayn isla markaana ay ku socotaaba ninka halkan joogo la yiraahdo mahad maxamed cabdilaahi oo isagu halkan joogo Mr. Fashion ay ku socotaa halku dhiga riwaayadana waa dhaqan aan dhoofin iyo riwaayadiyo oo inada hafur doonta okay niyo waka roobkiya nimcadii noo daaday beerihina noo baxeen niyo tiyaan walaalahayn niyo xilligii waxa gaadhay guurka ugu qurux badan waxa laga gabadhay ama guurti ragada kaaga jirto ama goda kaaga jirto waxa weyna nin wanaagsan oo diinta yaqaan oo dhaqanka yaqaan wayna la doonaa hayaay warbasoo yaacay sacba weyn dhalay warwaaxay ninkan sirbaha ka labisan ee surwaalkii ka sii dhacayo ee labada sano ka qaawan hayaa salaamaad kulli afaad war waxaan ku uri waxba ma qaawani wixii cusub caalamka jecel kowde qeyrka ka harwaa habaan dadkaaga dhinac ka raac waxa uu labisay sidan dhalinyarada iyo ragga wax isbiday sidoo kale ee marka aad dib u socotaay dadka soo gal hayaay wariyaha sida caadi baad ku tahay bika maxaa la bisaala ma ninkaagan cawradiisu qaahire ka muuqato ayaa cid gawaabinaya oo horumariya casri ka sheekeynaya adeero gacali ri hadday dib leeyihiin dabadooda ay ku qorin lahayn oradaadan cawradaada nasto waxaan kuri ma ninkaagan xadaariga ee ilbaxnimada iyo horumarka casriga la jaan qaaday ayaa leedahay ku dambaysa waniyo heede darosyo soo barbaan oo dadka soo gal adeero dadka waaweyn oo ka magac iyo maamuus iyo marba weyn oo sharaf leh ayaanu niyo ku saarnay ninkaaga yara dhanxiirkii adinaha nooga baxay waa heede waa tan magaalada way waa taybeen waaliyade والسلام عليكم وعليكم السلام يا جورها هو زي سنو ذركي ما حايد كل حي والبلهاي إني كناك ماذا حدنا خيري كنا عن الداي لأن بني دبور كنا داخل قد كنا دوتشي ما مودا الله ما مودا بيرتي لبوكا غشي ما مودا هبلي دور كنا ريبتشي waxaan kuri waa model waa 25 weedi dii qura la isku sooca nin daran baan ahay waxana nasiib yeeshay oo diig u xirta yani sidoo kala daroos iyo gudub wariya moogi marmogo
والمون بوجهين ويسقيه لا إله والبوجي وام حساب وحيرته يدرك على حيرته يعيك على وقته صودقي نين وناكسنها waxaan ku yidhi hablaha jaar iyo kuwa gayaankaaga iyo kuwa inaga soo horjeedaba ay kugu soo hidan jireen maxaa caynkan kuu galay waxaan ku yidhi horta taasi waa inoo dambaysee gabadh baan u socdo doonay waxaa ka doonaysay oo waxaa ka doonayay ninka saaxiibkee samiir waxaana doonaya inaad ku wargeliyo samiiroo saaxiib gabadhaan doonaya oo walaasha waxaan doonayaa inaad ii hibayso ii meeriso ii dhisto على شانطة ضبطك يا جباتي يا رتنا واقون وعنكوري شوف وعنكوري موجو أرد وحالي مركز نين دونيسو لا هي نبان دونيا يسرع يا سوق هذا حيلتي هرت حيبني ويني هكام وقت ده أذيرو فهرتي أذيرو نكاعن هذا كراهن ولا قبل لومه هي محر قبل دونتا أديك بقى عورنا هذا مريان درنا اللهم ما لبيك تاجني horta awradaha soo asto oo sidii in loo soo doori jiray naga soo doon wadriyoona saadada waxaan ku ri oo ma soo raacdan ay rag baa soo arki doona gabadh la isku diidaa google la isku dhigtay leed hadii leena kala garsaari waayo heede waynayo gogasha ha waayahay magaasa mari adeer gabadhu waxay u baahan tahay aba iska giir qaasiin waxaan ku ri heede soo diil dharoosiibaadi anaga leeyahay gabadhu waxay u baahan tahay nin mas'uul oo qolma ada gabadha boqolo loo bixin sadaqad loo sa gabadha ayawaan wariya sigi a'udhu billah warha cilmi tani kuni wanaagsan buu hayo bilii u dabisu hagaagsanay waa ninka naaw riiri ugu jira waxa kala ku weydiiyay markuu inoo imaado inaan baan doonay waxaan inoo tirso hagaajiyo markii hebidu ka baxsan ku siin laga dacay ka weey inuu kaligeed baan inaan looga tagay taas ugu roon eeganay dacay ka weey sadaqa loo bixinay laba adero waxaan ku iri inan baan doonay saaka doonayaa haye waana la soo diidayaa haye waxaa la igu yidhi inanta ma geydid yaa ku yidhi reecag waraabe allah ama reerkii wanaagsan reer wanaagsan bahayni oo xididnaaye maxay kugu diideen anaa ku yimid imika waa aniga borsadiina wata haye weliba markaan isla xiiqnay inankoodii baa igu yidhi ma geydid baayo dhanka xiran leh sirwaalka soo hagaajis anna waxaa ku dhi waa istaal cuudu bilaahi oo sabku adu sad labisay taa adeer waa istaal maxay istaal adoo yaa ma la yaabtaadna ama la sirwaal ma waxan waa sirwaal adeere oo waxaan ku yidhi inanta dabeedna ma iska dayso dil u diiday ma doonaa imika dee sooni kunida adii doonta ku ayaan doonayaabee ilooge way haddii la yidhahdo waan kusoo kaxayn waa yeedan maxaad sidataa yaa gabaatigii waa diyaar baa haa diyaar baa مريم قولي السلام عليكم عليكم السلام مستعلى اسكورهم والله فعلا قولي ونقولي والله محلية ورص على إن كان غوادر ما هو هاي ومن القاولة يسمع له كذا عيه سرق سنة هي سميه برنا هذه برنا داعي برنا ولا كانوا كذا قميص أيام غير الله حكيمات كسر عليه ساسين قبل الدنيا ولي والله عنكم ها أرضو وحشة أما أرضو لابد الدارو مين كذا هذا تذكر لي يسوي دقيقة ما بالبال نقدر نطور هذا رو تذكر ولما يبيحن كوري أنا إلي أبي حضارتنا وحبك ما يقالن الله يبحي تبى تبي واحد ولا يبى بهالبودوي إلى القبلتيو سبحان الله معكم طرف هاي مشغولين ورده وارنا بوضي أبسادي يا اللي أبسادي يوم من هذا بل نمري وين تقلا هاي نمر مشرعنا يا ونك يا لو بلسنين قبل الدوري اجل لكن سيدوتي
صلوا أبوك داعي wareere وريا علمي waxaan ku yiri علمي ragii in lahaa inay baan idinka doorinaa نلا بلا ولي ما هنا واحد ورني ومسوا نقولي waxaan ku meelaha Soomaaliya tawxiid ku dhacay isku weerka badan horta war nabada lagu siiyay aye darfaka iga dhalay aye rag haday noo imaadaan ama xaga dambe istaagay kuuli markaas leeysan ayaa soo baxay wax ku tiraada halkaan lagu jiro waxba hay sheegay waxba hay sheegay ardayna gutiisa baxay jeeno yaqaan xaga qurbush soo geeyay anagu daawan anagu beero wada qabnaa daawan ma yahay hadda sabaxay oo tigay wuxuu dhigay ma garanay ilaa uu sheegay والسلام عليكم وعليكم السلام وعليكم ما سنتين حقيقة ayo dawaan sareeyay ومعك تراهدين wuxuu lagu yiri inay baan idinka doonayaa buuri moogtahay ana waxaan ku niri hadaan oo reeb bacaynahay hadaan idin laga doonayso doorta haybadni weyna ka muuqato haybadni weyna ka ilaa warinti haye maxaad ugu dareentaa waxa kaloo lagu daray ee rag markay inay doonayaan way soo asturaano wala soo daba galaayo odayaal soo kaxaystaanay ninkii ba naag doona taa waxaan ku niri reerkaaga soo kaxaysiin cidii qabanaysa هذا وانيا أديركية أنا تركية أنا قبطة أنا حدا أنا توسية تينا بنكتب أنا تمسيح هذا أنا ربي اللي وشة إنا كانوا نويم قبل بوري ويديستي قبل ده ما عابنا وانيا ولا شيء أنا وحكوري فرصتها قبل ده لبسي هذا ما يقصد ديري أما الحاجة أنا أسكله سكهجاتي عروض هذا الناس تيسا بدريلا تخلق بدري أنا كربتها يسمعها وما هو قالوا يسكتين ملكو فليشين وين بنغني يعني كبات كانوا اثنين يقدمون أرد وعن كوري إنك هذا كيو وعن كوري واحد يعطى كوارا كبكت هراسو كمية سالة يا نيك عين كمان ما كان ينام تقول اسمه هالكا يلا ما كان حتى يكتب ده مسؤولية ده ما كان مقطع سبحان الله ما والله كم واحد هذا كل ما شيء يسوي ولا يلو بديله وجهك لو بيس ده يشاء على واحد خال أنا زي سلاحنا. وياي. ما جبت لي. صندوق ما هو يرد أنت ما بطل. وياي. واحد بيقولي. أنا قاعد نقول هنا. هذا. ولا يكون ضد. ما يسكون نقول منكم ما كان نهاك سين كسر كتان. لأن نوك هنا ولا كرنا يوم يعني جري هنا وين سين وين. وين. أنا بروح عيب سيدي في عيبي. وين. سميرو أقول يا هي بخير كذا شكله هي نافي عين كوي بيك وارتي كذا وشيء يعني عين هو اللي يصير كنت أنا يقول اللي هو تغوته أنا كغوته صوني مريح ولا لا عتوا يا حرعي واريا هنا هذا هذا لو حرعي وحرعي حرعي قبل ما دوريو ولا يديد يا وتيرد حي مسكع سجار كنا ميكو نعلي ما تهابس كدونت ماي إذا كانت شعله إذا أنت عندوتين على يقولي أنا ما قلت قلتها ما قيدي محل جوجل زي القبطة ولا يقولي والغاوته ولا يقولي والغاوته ولا يقولي وارونو أنا جوا ساكا قبل رجال في شيء كذا سأله هو ترى كل ما سكشن بس هذا هو يكتئ سيدا ما قال بس هذا هو يكتئ أرض يسوع جاتش أنا محل من القرآن يدو من القرآن إن أتى سنة قبل له غدرة أورون الأصل وتمان سحير ومريان أتحتها الحرة إسكسر ومساج صفقة هذا قاهرة واحد كوري أنت أصلا مركز صلاة أنت مهلية هاي وذي سبب من الحيس كيكون نواني والله ما غدرة يا ولي مكلية معنا هذا واحد كوري كورة تورية كورة ما حيرية كوري درعادي لو صاحرية بس أنت ترى ما كانوا قنايا وصفي عن إمك أمضى أيد حيسي صوتها عندنا أنا العقب مسينا أمضى الدقن كوجي يعقدوا اللي بيسودوني أنا اللي بيصامر مركا والله نقدر عندنا كونا سنين سلاية نسوقنا واحد كلنا هذا سياسة يري إمك الرسالة يجي هذا سكتشلي نوري يسوي ياتي بارك الله فيك أسوي سكتشلي هذا ay laqanayso beriskeyga ay kirsanayse sulugoye wadnaaye way mahaysaa dorsheeday warahaydo weridkeyga ay anfacayse sulugoye
nasiibkaaga warkusiiyo nasiibkaaga warkusiiyo alxamdulilah nagabaatigi wegde hadday ninkii intii usii yimid soo dhow وهذا إذا تبدأ أولياء الله يهلو أغلب يجيب تويل كده فعسي الشيخ مهرين هو شوقه مهر كيو وحول وايدين راح دواك عروس يلا سوق البيو الله يا رب يدين حري واي كباتك وانا كا واي وانا قلت انا بنيت وكان دورنا يا رب نواكل أنا وقطع بس أنا وقطع عريس كذي لك يسوع شيء كذي سلوكيا سلوكيا عريس كذي لك يسوع عريس كذي سلوكيا سلوكيا وكاسين يكتونا هذا من هذا أروز في سوق البلد ده يروح يعرف ما حد يموت أنا كلا بح الشيء يدبدي ولا كوما درسدا كما دودا كما ندور كما درشابتي تابكي يوم عدد دلك بدي مار بان كدغي اون كدرسن ابدكي تابكي يوم عدد دلك بدي مار بان كدغي اون كدرسن ابدكي
شكتونتي عشقي قوة تعدية تلوكم متكا قلبي قوة بوريكا تكو شكتونتي عشقي قوة تعدية تلوكم متكا قلبي قوة بوريكا تاني قرتا نغلي كبقى على انتباحية تلابن قاضيايو وحجة ترميان أركا تاني قرتا نغلي كبقى على انتباحية تلابن قاضيايو وحجة ترميان أركا وعني قلت لمي برددا كاتوسي وياي حقوقك ويقيمي تلوان وينجعلغي وعني قلت لمي برددا كاتوسي وياي حقوقك ويقيمي تلوان وينجعلغي مكان ما أبي digaan wadaadadu igu tufaan haddana waxbay ma taro cishqigu wuu sii tarma taxliil bay digaan wadaadadu igu tufaan haddana waxbay ma taro cishqigu wuu sii tarma taageero qofka bida tabcuu iloogaya tusmada guushan rabana توسنكرا تعذير قفكم بدا تبعو إلوغيا تسمد قوشان رابنا إله باتوسنكرا واني قتلمي برددا كاتوسي وياي حقوقك ويقيمي تلوان وينجعلغي واني قتلمي برددا كاتوسي وياي حقوقك ويقيمي تلوان وينجعلغي مكان هكا ما أبي nahablihii ku dhaliilay dhaqankeenii waraguba kuma dhaama wayska dhigeen nadhehii dhisha oo dhabtii qarribtee fa idinba dhuufto dhexdii karideen
nadhilow yahan dheersan baa tahay wa adnaa dhegno dhashaa tahay na dhammays ugu dheglaa tahay warad baa dhamaciiran baa tahay na dhowrsan lagu dhaata baa tahay wahalyay dhulku dhaarsada tahay naabkeenna darnoodashaa ka dhintee dadnatiisa dhigtaa tu kala ma dhaxle na shisheeya dardhoofay baa dholole wani dhoohani wuu dhul yaalaaye na dhalintu sibay dhalool u tahee badhadiyo dheelba dhalaalku wada nadhilow yahan dheersan baa tahay wa adnaa dhegno dhashaa tahay na dhammays ugu dheglaa tahay warad baa dhamaciiran baa tahay na dhowrsan lagu dhaata baa tahay wahalyay dhulku dhaarsada tahay agaasimaha sooyo injineer cumar cismaan miigane sacabka loo tumo ninka dhalinyarada u agaasimaha xaggaasan kaayaga yaalku dhawa joogto waa maadsantay soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم mar haddii dee kooxdii dhaqanku ay hadda ka baxeen oo anigana la ii yeedhay waxaan isiruun malaha inaad ciyaar dhaqameed aad meesha ka tidhaa ama aad ka samaysan bay noqonaysaa ugu horeyn halkan oo aynu caawa halkan marti ugu nahay kuna sugannahay sanad guuradoodii jaamac muuse jaamac oo aqoon-yahankeenna ah iyo marti sharafta kale ee dhammaan kasoo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley halkan caawa hadal badan meesha ma yaal malaha magaca halkar inkastoo aan u qaadanayno kunkar inaan u bedelno ayaynu odhanaynaa insha allah waa idin hambalyaynayaa sida wanaagsan ee habsami socodka leh ee howlkarnimada leh ee aad habeenkan caawa ah halkan aad ugu tusteen awooddiina dhaqan iyo aqooneed iyo isku duubnid iyo horumar runtii aad baan idinku hambalyaynayaa dee madashuna waa sahla halgan iyo hidadhowr iyo habeenkii halka waa wada ha-weeye markaa runtii muxuu ahaa aad iyo aad baan u hambalyaynayaa soonyo waa dalla dhalinyaro runtii oo dee dhammaanteen aynu ka wada mid nahay bulshada ugu badan maanta runtii waa dhalinyaro waxyaabaha aan jeclaan lahaa inaan halkan ka idhaa waxaa ka mid ah duruufo badan iyo waxyaabo fara badan baa dhalinyarada runtii ku gadaaman hase yeeshee haddana sidii fanaanadeeni samson ilaahay ha ka jisaaysiiye heestii aynoo qaaday dee dalkeenu waa inagu filan yahay inaynu filnaanshahaas inaguna ka dhabayno insha allah oo aynu raadino wayna jirtaaye ayuunbaan kulley horta ku talin lahaa runtii waan soo dhaweynayaa dhinaca dhaqanka sidoo kale waan ku ammaanayaa halkar iyo guud ahaanba runtii dee xarunta dhaqanka ee hargeysa oo ahayd runtii dee xarumaha ugu horreeyey maanta xeerkaa soo gaadhsiiyey runtii marka aad eegto dhinaca dhaqanka jaamac muuse jaamac waxaan jeclaanayaa inaynu sacab u garaacno runtii waa aqoon-yahan aad iyo aad inoogu weyn inoogu culus qof mudan qurbahana inooga soo hayaamay runtii sidii uu dalkeenna iyo dadkeenna runtii wax ula qaban lahaa aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa ka dhalinyaro ahaan waxaan runtii ku baaqayaa inaynu isu gudbinno dhaqanka wanaagsan oo aynu kala dhaxalno run ahaantii aabayaasheen awowayaasheen iyo inaga dhexdeennaba runtii dhaxalkaasi aynu ilaalino dadkuna taariikh iyo dhaqan ayay wax ku yihiin haddii dhaqankaagu uu kaa baydsamo ama uu kaa leexdo ilaahay nagama leexiye wax allaala waxaa tahay meesha runtii kuma jirayaan bisaan idinka sheekaynayaa annagu qolyihii waxaan ahay kolley meel fog maan gaadhin waxbarasho meelahan kusoo bartay
arrimahana lagu weydiiyey xaflad sidan oo kale ah waxay noqotay in ciyaar dhaqameedkaygii soo bandhigno berigaa runtii waan ku dhacay maanan samayn karayn annaga Djibouti baa nagula jiray runtii waanu kala weynay alxamdulillah laakiin waxaan ku faraxsanahay markaan soo noqday in barnaamijyadii aan ka shaqeeyey ay noqdeen runtii barnaamijyo dhaqameed hay'adda DRC oo muddo dheer aan u shaqayn jiray waxaan ka shaqayn jirnay barnaamij runtii soo saaray dhalinyaro badan oo baratay runtii dhaqanka oo xarunta Sokso lagu baran jiray kumaan dhalinyaro ah runtii maanta bartay dhalinyaradiina sidaas haddana ay isu sii gudbiyeen oo wada barteen marka dhaqanka waa waxa aynu wax ku nahay iyo jiritaankeenu runtii wax ku yahay waa inaynu dhowrno dalkana aynu aamino waxyaabahan kale iyo sawiradan kale ee inoo baxayana sidaas Samsam sheegtay Samsam dabadeed hadal dheer ma yaalee dalkeena iyo muxuu ahaay dooxeena dooceedba waa inoogu filan yahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin Samsamna waan ku hambalyeynaa inaguna taasaynu aaminayna haddii Ilaahayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkan waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu hambalyeyno howlqabadkooga iyo howlkarnimada dhalinyarada runtii halka isku soo agaasintay caawana hidadhow runtii waxaad ku soo bandhigteen howlkarnimadiinii kuwada sidaana annaguna mar kasta waan ku garab taaganahay haddii Ilaahay ilaahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh degmooy dumarkaba dhammaan midii aan durtay naftaydu ku dogsatiyo dabiibooga hadhayay degmooy dumarkaba dhammaan midii aan durtay naftaydu ku dogsatiyo dabiibooga hadhayay Dictor Rabbi diray dareen laabtiyo kashaba midii dejisay dhayday degmooy ciidan kula simaa miyay dunidaba jirtay Rabbi diray dareen laabtiyo kashaba midii dejisay dhayday degmooy ciidan kula simaa miyay dunidaba jirtay haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisay ilaah dambigaaga dhaaf ilaah dambigaaga dhaaf haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisay ilaah dambigaaga dhaaf ilaah dambigaaga dhaaf waynaka runtii Soomaalida xariir diin lagu dhalo ducada waalidkeed qabto mawluu igu deeqay runtii Soomaalida xariir diin lagu dhalo ducada waalidkeed qabto mawluu igu deeqay dadaalkaadii la gashiyo dulqaadkan kugu jeclo
markaan kula soo darsay durriyadii aan jantay naftaydani dogsatay dadaalkaadii la gashiyo dulqaadkan kugu jeclo markaan kula soo darsay durriyadii aan jantay naftaydani dogsatay haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisay ilaah dambigaaga dhaaf ilaah dambigaaga dhaaf haween doorkoodii markan ku helan dagu hankayga dujisay ilaah dambigaaga dhaaf ilaah dambigaaga dhaaf waynaka dhammaan anigoon qalqalqaadayn anigu abwaanna maan ahayn waxaan ku fiicnaa inaan daawadayaasha iyo qaayahaga ka mid noqdo laakiin si kadisun bay ka dhigaan marka aad baan salaamayaa waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa kooxdan sanadgurada qaad aynu caawa kula caweynayno halkan academy hawlkar nolonaanu hawlkar hawl aad u wanaagsan ayay hayaan oo muhiim u ah dhaqankeenna marka waxaan ku bogaadinayaa hawsha ay hayaan waxaan leeyahay halkan kasii wada runtii caawana aad baan ugu mahadsanay waxaan ugu soo bandhigaan aad baad u mahadsantahay ilaahay weytiisatay waxaan ka horeynaynaa dhinaca gogaaleysiga ka horeynaa tala bisaal xeelashii su-aalaha kale la isweydiinaya yaa gogaaleysiga ka horeynaa waaye mise xujooyinkan ka horeynaaba waaye waxaan u baahanahay hal qof oo gogaaleysiga isla waad garan karaysaa qolada dhaqanku iyagu kuma jiraan anasagil hore xawaaya ilaahay weytiisata qolada dhaqanku kuma jiraan laakiin dadka inta kale yaa isla waad ka jawaabi karaysa yaa ayaa isla waad ka jawaabi karaysaa waaye ma kamaalba kamaalow waxaan ku weydiinaa mid fudud waxaad sheegaysaa cadaawe googo casaawe celceli hinnifaakala bood habaray loo geeyey isaga anigoo kale waxaan filaya inaad si fiican u garanaysa soo dhawow ama soo dhawowa ama saxabka korku soo dhiirigeliyaa inadiisiree waay aan kugu celiyo waa cadaawe googo casaawe celceli hinnifaakala bood habaray loo geeyey بلاكير فكرة ود بقالها مو قرتي أما جوك عقيل تجي ساكمالو أنا شو السكناح يعني ما يقول السكتيجي أرتم ميو قرتي دبلا كاس يجوا يلو مو قرن أما يجا كل رأسنا هنا نتقرن وهي هذا محكمة أنا دين دي بيجي قرصورك حين كوحو كنا كمان يا وكوي تمام بس كوي هنا حتى إن الفرن الصحة هو ديار ويان إن تجرب ويان إنه فرطة ولا قولي ويا كمال هاي إن أنت لسه مسمينا ويفرد هاي دي قلوان وياي مرة تانية بقالي دن قريب وياي وانا هسعى صما كوي هرب سكوي ده هم سكوي دمبه كوي هرب وياي صعب قال لكن يقولون أوك إن شاء الله بعد يجي شيء موسيقى أنا رأسانية هاي تمنى يقول صعب ولا يقول كذا وين
لا 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 سيدكين عليلو وبحكول كتريو فكوني لامو انت امرا عليدا لا 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 way gubtay taas way yaa kale doortaanayga gogaaleysiyadeedii maxay ahayd meetaana ka jawaabay way yaa kale gogaaleysigii yaa kale diyaara hablaha inan dhiirin maxaa looga laayay ilaahay bay tiisataa mama hablaha fanaaniinta iyo qolada dhaqanka iyo kuwaas iyo gaar bay ahaanayaan marti sharafta kalaan doonina ninkaa go-a shaalka haysta ba soo dhow ma dhaqankiiba isaga laftiisaan ogolay soo dhow aan ka celceliniyo mid yaro fudud waay hadduu garan waayana waxaad odhan doontaa ogaan buu garan waaya hadduu gartana waa loo sii sheego waad odhan doontaa arninka imika waxba iskuma ogi waxaad noo sheegtaa saalaxnaynay sabeen meel eli sabeen meel eli oo amigu gartee yaa tan malaha idinka laftiinaan ma garanayn sidaad uga aamusteen bay ka muuqataa waaye maad garanin marka waxaa lagu xukumayaa maadaama kooxdii dhaqanka aad ka tirsan tahay oo halkan riwaayad lagu soo bandhigayay inaad dadka halkaa fadhiya caawa ka qosliso caawa inuu halkaa dadka ka qosliyaan ku xukumayna hawlahagii mirqankiyo hawadan marayay mijintaadii siisaa madaxayga kicisee hawlahagii mirqankiyo hawadan marayay mijintaadii siisaa madaxayga kicisee may qaadi karaysaa may biisi karaysaa may wecelin karaysaa mirqan baa i jiitee way dhan tahay yaa kale waynu soconaynaa oo ninka xagga gacanta ka tahay laakiin hablihi u baahanaya maxaa habli ku dhac ha baqanina inamada idin furanaya waxaynu masal u dhigrani hablaha inay furtaan xataa diyaar bay u yihiin yaa diyaara hablaha laara kala badan waxay dhahdeen inanta garawada annagaa furanayna ha ka baqanin soo dhowo waaye soo dhowo bismillah gogaaleysiga waa ka wareegaya saddex leydaan u wareegaynaa hal waa yaab halna waa yaabka yaabkii halna waa amakaar baladba horta hore ma maqashay ما مغلي لكن أنا لا أنسى واي aan kuugu celiyo joog aanana yaa furanaya haddaba rag yaa ilaa anaga furan anaga ninka xaggaa daba jooga adiga soo kac ninka maciiltida leedaa waay magacaaga asmaa maasanta iska fadhiiso asmaa ciiltida furtee ciiltida hadda maxaan ku xukumaynaa waay inoo heesaya waa inoo heesa marka hore waxaan jeclahay inaan salaamo horta bahad halkale ka degi aqoonyahankeena jaamac muuse jaamac cabdiweli samriye fanaaniinteena qaaliga saaraylays nagiib wadna kaabe iyo dhammaan fanaaniinta kaleba hees baa dalbateen kisiyo hanadba laga boodsada ninkii wax garada lagar waa haqsada
waningala abalo gudi kara wanago sama kugu gargare gerexiyo adogodo malin hawshani laka amago ninoko anka goy adbadmatati عملها فريد هلكي كسو عندنا قاعد دوتو ان واي واسي سعرنا ان وقت منوينا يا كلام اللهم صل على محمد adiga ها سولو واي ده صاحب سولو ويا عوا halkan waa lageysay habeen horta intii la garan waayay meel soo sheegnaan soo socdo mise mar baan soo raacay wixii la garan waayay dhan mar baan soo raacinayna waxaad sheegtaa labada isku ooya ayaa laga doonaya waa way fara badnaayeen markaa laba kelimo soo qaadanay waxaan sir hadaad sii wado aan soo ku fara badatahay labada ugu horreeyay ma ku sheegay labada isku ooya laga doonaya labada isku ooya inkastoo waxaa soo indhaa danaa la sheekay soo eegaya labada isku ooya tan maxay ahayd mooyade mar wala isticmaal marne way maad garanin anaga sheegi doona miyaa la furanaya ma hablaha furanaya waaw waxaasaa loo baahan yahay ilaahay inanta xagga daba fadhiida soo kac kaale furo kala magacaaga maxaa malaha idaacadaha imaad dhegeysanay waxaad jirtaa magacaaga shareedaduna kusoo baxda ma koogayahay ma ismahaan baa furanaysaa waay inkastoo inaan ogolaadaan ahayn haddana iska ogolaanay maarta laba doonaa labadii ka jawaabto waxaan doonaa horta inaanu ku xukunaan doonaa wixii isaga lagu xukumay dee inaad ka furato soo saas maaha ilaan xukunkaa laga furanaya su-aasha qof su-aasha garanaya ilaan qof kale odhanayaa garanayaan odhan lahayne xukunkiisii baa la doonaya inaad furato su-aasha jawaabteedii ma doonayno soo saa maaha dee waaye maxaynu ku nidhahnaa iyadana hees waaye hees odigii heesta dhaqanka halkan ka qaadiyey weliba waxaad noo qaadaa heesii hore qaraamigii raaxayihii deegaanka ama dee hooyadaba heeso heestii hooyaba noo qaada بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان هالكذا كادي مويد السلام يا مدح شرفت له دمان هفيوكو فنانين تا دمان حنلاقي هاي هاورد هاكر محي ما هسه مغلسن اساسنا إذا تقعد ملي هوي إذا درن ملي هوي هاي بوهالين هوي أنا أحديهم فايقاي دبركيون إيداي يوالي أكسيداي هاي هاي dhammaan hooyooyinka waynu jecellay ilaahay haynoo daayo intay hooyooyinkood dhinteen allah u naxariisto waa su-aashii u dambeysay iyo qofkii u dambeeyey markaa jawaabaan geli doonaan masrax baan ka wareegi doonaa inanta dhaqanka xnaan waan siinayaa haa soo dhawow khaanadeemanta looga soo baadho ayada inanta saxab ku soo dhaweeya waxaa dadku bakhaylsana highlanti stageka imanaysa soo dheere adiguna berigii hore marka aroosyada sidan oo kale la isku kiciyay marka qof gari waaye uu ladhaa hees la soo qabto hees baa loo qaadi jiray waxaa la odhan jiray garanaya wixii la odhan jiray idiin sheegi maayo idiin diiday waay magacaaga أسماء محمد asmooyinka caawa nagu badan caawa caawada asmadeeda asmay
inan baa inan u haasaawo tegey waxay ku tiri waxaad ii timaadaa marka odayga reerku seexday carruurta ay soo jeedo aniga isoo eego iskidaa qoladana marka odaygu seexdo ee ay carruurtu soo jeedaan maxay uga jeedaan waay asma waynu xukumaynaa laakiin de hadduu joogo qof furanaya weliba xagga ragga waar lama furanaya waa iska diiday bade anaa diiday waay asma maxaan ku xukunaa heestuu dambeysa soma mameed qosol ma karaystay ka daayinanta anaa iminka go-aanka gaadhaya iyagu soo ka horamaydin xukumin waayahe bal qosol baan u daranaa in dadka ku qoslisay ilaa weytiisatee dhegaystayaasheeda indhaha burburan ee dhagaha fiiqfiiqan kusoo dhawaada warkii qasaacadaysan warkan waxaa laga soo farmaroojiyey balliga daamo dushiisa warkan magaciisa muuqa dheerla waxaa la dhahdaa dhegaysa amaa dhegaysan dableyda dameerada ka mid ah oo maanta dagaal weyn uu ku dhex maray dooxa magaalada Hargeysa dableydaasi uu kala isku adeegsanayeen waxaa ka mid ah tibta mooyaha malaasta halkaasi dagaalkii xoogana ee ku dhex maray dableydaasi ay guushuna ku raacday dameerada واو أصبح الساعة بدأ بسي سجوتينو مركز هذا واحد بدقلنا شوابه سؤالي السويدي عداوة جوجو عساوي العلي هن فاكلبود أوري لوجي وحويان عداوة جوجو ويلكا عساوي العلي وعربكا هن فاكلبود وهنجريا أوري لوجي نوع علوشة كاساسوها صالح نيني سبين ميل إيري سنوى حالو الوالكا هل واياب هل نواياب كيابكي هل نوا مكان تتمدى أبور بادي سواياب هبين بود السنة واياب كيابكي بيالآن بود السنة ومكان ما عندوف تيسو كود السنة واي تيك الله محاها لابد يسكوه حتى إيشا وحكاقا دعان إيشا كلانا ويقول ويسا أو المينسا أدوات ما سنتين مركز سكال بانو يري دونا سي برنامج الجيبيسا كلا يدين كسي ودو ود ما سنتين يا قف أي نودا سوغيني غورهم با على محا كدعاي أمانة محا تريد يا دما ما كلا غوري كرايو waxa weeyaan Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah gudoomiyaha qaranka dhaqanka Hargeysa الميكروفون كوردين قرام تلميه سواء خلطنا هاي waxaynu leenahay maadaama imika jooga magaalada Hargeysa oo xarunta dhaqanka haysta oo dhalinyaro badan ama dad badan oo Soomaaliya in uu ku hago maxaa dhahdaa dhaqanka waxaynu weydiinaynaa maadaama qoray buugaag af Talyaani ku hadlaysa ku qoran af Talyaani ku hadlameen wala bisaxdide waxyaabaha ku kalifay maadu Soomaali yahay inkastaan horena uga sheekaysanay laakiin intan oo yaro soo hor fadhida ayaan doonayaa caawa iyo waliba in kala daawan doonta waxyaabihii ku kalifay inuu af Talyaani qoro waliba dad dhalinyaro oo maxaa dhahdaa yaro oo Talyaani inta soo hortaago oo ugu gabiyaba ama ugu gayra haye soo dhawo سجل يا دوم حسنته بسم الله الرحمن الرحيم وقتوي أدك تعاود يا حال كل بين الدون الناين إنه ما اسمع لي عاود معلم بان هاي معلمين تومر كي حال لي وي أدك تهيني وقول هذا اللي قاعد حال لما كقول حاجة قدام به كاساوي سوحان شعله هني دقيستان أفتلياني وين كبودينا لكن سانسجل بتشوفه ده معلم بان هايو تطلياني إنه حقول دقيقة إن أفكار وحقول دقيقة بهاي تقدر أديت بان أفتلياني جوه هالشيء لكن عاو هالكو حنسوون مي واحد قيمة بدن وارون وين ولا فرحنا وين قصلنا وين شيء سنة وحبينو كبرنا لكن أنا أقول أنتي أنا كافدي ولا بان بقول واحد بدن بان قرناي واحد بدن بان برتي وحندي إلهي كبري يذكر إن واحد ربنا كبرتين وحيالك كدعي عاو لكن لما واحد الشكية قالوا دوري عاوين إنه أنت عن هذا كتجين إنه يدو إنه كلا عاديين ويرانا نيجي كلا عاديين نعم كبحنا محمد داود بيوم كنا أنت هذا كسوك عيسيت المامي وحيلي إن أنت دقن كحلم
inanta dhaqanka xidhan waxaad moodaa dhaqanka ereygii dhaqanku inuu dharkay nagaga xidhmay ereygii dhaqanku inuu muuqaalkayga nagaga xidhmay ereygii dhaqanku inuu timaha sida loo xiirto nagaga xidhmay dhinac waa ka ayaan daro ilaa caawa halkan kamaan maqal qof yidhaahda fankeenii baynu ka hadlaynaa tusaale ahaan erey inaga lumay qiimo lahaa oo malaa waxaynu caawa isugu nimi halkan sal u ah mar qura maan maqalo waa ereyga fanka oo fankeenii baynu marka laba erey baan ii dulqaato waa xilli dambe waase macallimiinta caadadooda laba erey baan doonaya inaan idhaahdo dhaqanku anigu ma jecli dhaqanka xarunta dhaqanka ee Hargeysa jooga laakiin lagu ma jecli dhaqanka inaynu haysano inuu dhaqankeena haysano ereygaasi waa erey weyn laakiin sababta uu leeyahay waxa weeyaan dhaqanku wax meel taagan oo shaambad ku dhufsan oo calaamadaysan oo xuduud leh oo aan laga gudbin ba anigu u malayn maayo dhaqanku waxa weeyaan qofka bini aadmiga ama ummaddu waxay kaga jawaabto dabeecaddu waxay ku keento haddaynu dharkaynu xidhan jiray uu nooc ahaa waxaan aad u qoslaayay inankii la maagayay suwaalka ku dhajisan xidhnaaye anigu maan arkayn cawra ka muuqatee lagu lahaa cawraa ka muuqata ninkii laakiin soo socdayna inta siinaye tafaaxaytay anigu suwaalkiisa gaaban waan arkay dee uu ka hoos xidhan yahay dharka labada isagaa qaawanaa markaad runta eego xaqiiqdu inay dareeteen in kale mooye wuxuu xidhnaa nigis liidliidle oo madow ninkii macawista xidhnaa ku maagaya ku lahaa wad qaawan tahay ninkii suwaalka xidhnaa riwaayaduna xaqiiq bay matalaysay waxaan uga jeedaa dhaqanku ma aha wax meel taagan dhaqanka xabad laguma ilaaliyo dhaqanka uleys lama hortaago dhaqanka lama yidhaahdo waxaynaynu haysanaynaa waayo wax kale aynoo soo gelaya waayo dhaqanku waxa weeyaan anigu fix shahaastayaal ka socotay aad baan u jeclaystay inantii lagu ammaani jiray awrka luqunta dheer iyo faraska iyo dee inanta maanta joogta haddii facebooka lagu ammaano anigu ceeb ma arko taasaa ku nooshiin taasaa garanaysaa taasaa quruxdeeda aragtaan taa quruxdeeda ka sheekeeya tii aniga iyo inta ila da'ahay ku soo koreen noo daaya annaga taasi halkaa ha noo taale maxay idin ugu noqonaysaa quruxdaa haysataan waa taasi quruxdiina maanta ka gabiya quruxdiina ku wada hadla quruxdiina ka sheekaysta sidaa u qurux badantihiin ka sheek dhaqanku waa kaa maalinba halkaad joogto laba waxun baad ilaashanaysaa oo aanu had iyo jeer ka boodno oo ah ahaanshaha qofku wuxuu yahay isagu ilaawo uu wax kale isu ekaysiiyo dabadeedna aan bado laakiin bal hadda hal second indhaha isku qabta maxay ka soo eegaysaa indhaha isku qabta idinkoo indhaha isku qabtay markayd indhaha kala qaadaan haddii halkaa qof mudugii ka soo galo oo qaawan oo sidii ilaahay u dhaliyey waxa ugu horeeya maskaxdiina ku soo dhacaya waa maxay ya maxaa adigu samaynaysaa haddaba qofka ahaanshihiisa labadaas ku qadaysa waka qofka ahaanshihiisa ka taga aniga waxay ku soo dhacaya baan idiin sheegayaa waxay ku soo dhacaya hore wax weeyaan jaakad baan xidhanahay oo way iga goodaay inta jaakadda iska bixiyo inaan ku tuuro qofka dhahdo allah ku asturo soo maaha wixii kaa go-aya inaad dusha ka saarto waxaad haysataa waa jaakadaada qofka ahaanshihiisa ka taga ee wax kale doonta marka way halka dhaqanka laga qaldayaa aan isdhegaysano fadlan qofka dhaqankiisa qofka ahaanshihiisa qofka jiritaankiisa intuu ka tago isu ekaysiiye cid kale waa qof isagoo muduga socday dabeedna qofka kuugu dhowey waa kuwa kale aynu la joognay waxa ku soo dhacay maskaxdiisa wax weyn intuu go'a ama intay go'a ama shalmada iska saarto inay shalmada dusha ka saarto waayo wixii kaliya haysatay ama waa wixii kaliya anigu aan haystay ayga go'ayay marka inaydin ahaanshihiina iyo jiritaankiina iyo waxa ahaydeen aydin haysataan waa muhiim laakiin ereyga dhaqanka yaan loo celinin oo laga dhigin oo lagalama digin inuu yahay aragtida iyo shayga inantaasi waxay xidhan tahay inankaasi wuxuu xidhan yahay kabaha uu sito suwaalka dhajiska uu xidhan yahay kaasi dhaqanka ma aha dhaqanku waa wax kale dhaqanku waa ahaanshahaaga waa jiritaankaaga waa ummadnimadaada waa diintaada waa waxa aad ummadda kale kaga soocan tahay marka yaanad waxaad ummadda kaga soocan tahay laydinkaga dhigin
inay yahay dharka oo keliya haddii ay hablaheenu xidhan jireen intay guntiine xidhaan ay dariiqooda mari jireen iyagoo qurux badan jeclaan lahaa intii halkan inooga heestay hadday life inoogu heesi lahaayeen halkii ay organka inooga heeseen caawa intaasaa boqolkiiba boqol jeclaan lahaa ma aynan hoos u dhigayo wixii qiimaha badnaa ay sabsamaynta halka joogtay noo sameeyeen wax fiican bay ahayd laakiin aniga afka cuncunayaayo lama heesta haddii halkan ka malala yimaado cuud lagu garaaco imuu saasuu ku lahaa halkaa aynu noqono waxaynu lahayn aynu soo ceshano waxaynu lahayn yaan la inoo caayin oo lalinacsiinin wax aanaynu lahaynna yaan laynagu jojoogin aad iyo aad baa mahadsan tihiin midda ugu dambaysan onayaa wayga canaan waan doonayaa caawa inaan halkan sii fadhiyo ugu yaraan saacad inaan sii fadhiyo waan jeclaan lahay oo dhegeysto wixii qiimaha badnaa ka dhacay laakiin sababtaan u fadhiyi kara lahay maad garanaysaa sahra halgan iyo inta halkan noo furtay xaq bay noogu leeyihiin intay laadi nagu dhuftaan inay dibadday noo saaraan waayo haddaynu bilaabi lahay 8 habeenimo markaynu ballanay saacad iyo badh dheeraada baynu haysan lahayn saacadii badhaa dheeraadka waynu tuman lahayn waynu qosli lahayn waynu farxi lahayn inta halkaa fadhiday noo heesi lahayn laakiin innagaa soo hafsaanay xaq uma lihin inaynu kowda habeenimo nidhaahna caddaan iyo haddii badankeedaya sahra iyo inamada iyo hablaha la shaqaynaya halkan inoo jooga waxaan idinkala dardaarmayaa waxaan idinku celcelinayaa haddaynu xilligaynu ballanno ku bilaabanno waxaynu u ballannay inaynu inagoo faraxsan oo qoslayna oo ka qiimo badan intii markii horena meesha ku nimi aynu halkan ka noqon doono intaas way iga dardaaran aad iyo aad baa u mahadsantihiin